horumarka dalku waxa uu ku jiraa qoyska oo hagaaga qoyskuna waxa uu ku jiraa lamaanaha oo aqoonta qoyska yeesha. haddii ay lamaanuhu aqoonta qoyska yeeshaan waxa ay soo saarayaan ubad tayo leh oo si wanaagsan loo barbaariyey oo kaalin kasta oo ay nolosha ka galaan sida ay tahay uga soo baxa dabeetana horseeda horumarka dalka. ragga iyo dumarku sida ay shakliga iyo muuqaalka guud ee inoo muuqda ay ugu kala duwan yihiin ayaa sidoo kale waxay ugu kala duwan yihiin shaqooyinka gudahooda ka dhex dhaca iyo habka ugu dhaco. hadday tahay hab fikirka, hadday tahay xal raadinta, hadday tahay go'aan qaadashada, hadday tahay xusuusta, haddii ay tahay xiriirka, haddii ay tahay jacaylka iyo kalgacalka, haddii ay tahay hadalbadnida, haddii ay tahay howlqabadka iyo inta shaqo ay qaban karto gabadha isku mar, iyo haddii ay tahay galmada intaba. mid ka mid ah waxyaabaha abuura khilaafka lamaanaha ayaa ah kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka oo aanay aqoon lahayn marka hore lamaanuhu. taas oo ay raggu mararka qaarkood ula dhaqmaan dumarka sida ragga, dumarkuna ay ula dhaqmaan raggooda sida dumarka oo kale. haddaba si aanay lamaanaha khilaafka ka dhashay kala duwanaanshaha lamaanuhu aan ugu sababin khilaaf abuura furiin, waxaa muhiim ah inay lamaanuhu marka hore ay aqoon u sii yeeshaan kala duwanaanshaha gudeed ee ragga iyo dumarka. haddaba haddii aynu soo qaadanno qaybo ka mid ah waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku, tusaale ahaan xal raadinta oo kale. xal raadinta marka ay tahay, raggu had iyo goor waxay ku fiican yihiin in ay xalka raadiyaan marka ay mushkilad timaado, balse dumarku waxay had iyo goor jecel yihiin in laga dhagaysto mushkiladda oo lala dareemo dhibka haysta inta aan xalka la raadin ka hor. sidaa daraaddeed waxaa la gudboon haweenka in marka ay mushkiladu tilmaanto ay u tilmaamaan ragga, waayo iyaga ayaa xalka raadsanaya. midna ha iska ilaaliyaan inay barbar dhigaan ragga kale oo tusaale ahaan haddii guriga ay laambadi ka xumaato, ma aha inay tidhaahdo laambadan maad hagaajin mise waxaan ugu yeedhanaa cid noo hagaajisa. sida oo kale ragga waxaa la gudboon inay dumarka dhegaystaan marka ay mushkiladu soo food saarto oo aanay kula degdegin xalka, waayo sida aynu hore u soo sheegnay dumarku waxay jecel yihiin cid la dareenta mushkiladda soo food saarta. hana ka warwarina, waayo xalka iyaga laftooda ayaa heli doona oo waxay ka dhex heli doonaan hadallada ay leeyihiin iyo hadallada ay kugu soo celcelinayaan. haddii aynu eegno dhinaca go'aan qaadashada laga baaraandego waxa ku fiican ragga. haweenka kuma fiicna go'aan qaadashada maskaxaysan ee laga fikiro. sababtu waxa weeyaan waxaa mar keliya ta maskaxdooda ku soo dhaca afkaaro tiro badan oo waxa ku adkaata sidii ay u kala dooran lahaayeen afkaarta maskaxdooda ku soo duxday. waa sababta keentay inay haweenku la tashadaan had iyo goor qof kasta, yar iyo weyn, rag iyo haween, haddii uu taladeedu ay soconayso iyo haddii aanay taladeedu soconayn labadaba. ilaahay waxa uu qur-aankiisa ku sheegay balqiisa oo boqorad ka ahayd Yemen. nebi suleymaan waxa uu soo diray warqad uu ku leeyahay soo islaama. deetana inta ay shirisay dadkeedii isugu yeedhay waxaanay ku tidhi aftuunii fii amrii maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun, bal ila taliya waxaan samaynayo. deetana raggii waxay yidhaahdeen naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin walamru ilayki fandurii maada ta'muriin. annagu waxaan nahay dad xoogan oo dhibkaygu daran yahay ee aduguna amarun. halkaa aayadda waxaynu ka faa'iidaysanaynaa gabadhu iyadoo awood u leh inuu amarkeedu socdo ayaa haddana doonaysa in talo la siiyo. raggiina iyaga oo ay ahayd inay talo bixiyaan ayaa markiiba waxay idhaaheen aduu amarka u nasi. marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka ee xagga go'aan qaadashada. laakiin marka dhinac kale laga eego, dumarku waxay ku fiican yihiin go'aanka degdega ah ee markiiba lasoo tuuro. nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam xilligii xudaybiya waa kii la tashaday gabadhiisa Umu Salama, deetana tala ayay siisay. taladiina waxay noqotay mid lagu badbaaday. nolosha qoysku waa mid ku dhisan isdhamaystirayaan lamaanuhu, waayo mid wuxuu ku fiican yahay ayaa ka kale ka maqan. deetana waxaa loogu talagalay in labada qofba isugu deeqaan midba waxa ka kale ka maqan. mid ka mid ah waxyaabaha la isugu deeqayana waxaa ka mid ah go'aan qaadashada iyo xal raadinta. sidaa daraaddeed waxaa habboon ninku inuu la tashado had iyo goor gabadhiisa marka uu doonayo inuu go'aan gaadho, waayo afkaar badan iyo xalal badan ayay soo hordhigaysa. ninkana waxaa la gudboon inuu gabadhiisa ka caawiyo go'aan qaadashada, waayo iyaga waxaa ku adag go'aan qaadashada laga baaraan dego, laakiin waa inta badan, mar walba ma aha. lama wada odhan kara lama tashan jirin, laakiin ha jireen rag badan oo qalqalafsan oo dumarka ku adaday, laakiin haddana haweenka talo waa laga qaadan jiray. waana caqliyad liidata baa la odhan karaa ninka yidhaahda gabadha lama tashan karo. hadraawatix wuxuu ku lahaa marwo garasho dheer baa ninka raga u guduno, iyadaa guddoonka iyo garhayaha naftaada iyo gaadiidka reerka iyo gurgurshaaga noqoto arrin kula gorfaysee haddaan gaari kula jirin ilay noloshu guul ma leh. halkaa waxa laga faa'iidayaa yaanahay waxaan wax dhaqanka si toosa aan ugu jirin, laakiin ay samayn jireen dadka qaar siday maantaba u jiraan rag badan oo wanaagsanaa haweenkooda talo iyo tusaalaba ka qaata. berigaana ay u jireen rag badan wanaagsan, laakiin haddaad aragtan nin dhaqanka inta qariban soo qaadanaya waa anan isagu tiisa ku toosinaya.
haddii aynu eegno dhinaca tirada shaqo ee ay ragga iyo haweenku qabtaan, haweenku waxay awood u leeyihiin in ay isku mar qabtaan shaqooyin tiro badan. tusaale ahaan, iyadoo oo daaradii masaxaysa, oo cuntadii karinaysa, oo ilmaheedii habaysa, oo tiifigii daawanaysa, ayay haddana dharkii meeraysa, markaase hadday doonto ay taleefon ku hadlaysa. ragguse waxay awood u leeyihiin iyagu inay hal shaqo una awoodda saaraan, halkaa shaqaynta ay wadaan inta badan ma ogolaadaan, awoodna uma laha in laga soo dhex galo ama ay wax kale ku wadaan. waa kala duwanaanshiyo ay kala duwan yihiin ragga iyo dumarku. ma aha dumarka ayaa ka fiican ragga, balse waa shaqo uu ilaahay ugu talagalay inay dumarku saa u shaqeeyaan, ragguna ay sidaasoo kale u shaqeeyaan. sidaa daraaddeed waxaa habboon lamaanuhu, gaar ahaan gabadhu, inaanay ka qiyaas qaadan ninka sida ay shaqada u qabato, oo tusaale ahaan marka uu ninku shaqo qabanayo oo uu iska yaro mashquuliyo aana odhanin ogaan baad iskaga mashquulinaysa. mid ka mid a waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku waa hadalbadnida. haweenka ayaa had iyo goor ka hadal badan ragga, sidaa daraaddeed mararka qaarkood waxaa dhacda rag badan inay diiqad ka qaadaan dumarka hadalbadnidooda, oo marka ay ku hadal badato ama soo ag fadhiisato ayaa ragga qaarkood waxay sameeyeen amaba waa iska mashquuliyaan, haddii kale waxay ku yidhahdaan hadal badinaya horta naga fadhiiso amaba naga seexo. arrintaas waxay gabadha ku abuuraysaa murugo gudeed iyo inay gabadha caburiso, deetana hadhow cabudhaadaasoo isbiirsataa waxay noqon kartaa mid abuurta khilaaf. sidaa daraaddeed ninka waxa la gudboon inuu gabadha jaanis siiyo, markay hadlaysana u ogolaado inay hadasho intii karaankeeda. mid ka mid a waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku waa adayga iyo naxariista. dumarka ayaa ka naxariis badan ragga, ragga ayaa ka adayg badan dumarka. laba arrin baan u kala qaadaya way kala duwan tahay. haddii la eego casrigii hore, casri jaahiligii oo kale, gabadhu inuu ninkeedu dilo waxay ahayd waxay ku farxaan oo kale, haddii inu dili waayo ninkooda, gabadha waxay u aqoonsan jireen markaa inuuna jeclayn oo wax caadi la ahayd. laakiin iminka casrigan iminka la joogo, gabadha hadduu ninkeeda ku adeego ama uu dilo, dee waxay la mid tahay wax foolxunoo ma jeclaynaysa oran karayna. dadka inta badan hadallada idhaahda in ragga Soomaalidu romantic ma aha qaababka isticmaala waa dad aan hayn horta inta badan dad deegaankan aynu inagu joogno ku harayo wali jooga badan waxay u badan yihiin dadka qaabka isticmaala qurba joogta. mararka qaarkood waxaa dhacday inuu ninku gabadhiisa ula dhaqmo si adag, deetana ay gabadha u malayso in aanu jeclayn, balse waxaa laga yaabaa inuu jecel yahay, laakiinse dareenka adag ayaa ka badiyey dareenkiisa jacayleed. markaasoo kale waxaa habboon inay gabadha u dulqaadato ninka oo ay u samirto, oo haddii ay awood u leedahay inay dabeecadda ka bedesho ay ka bedesho. adayga waxaa keeni jiray horta noloshii horaa noloshan ka adkaydba. ragguna mas-uuliyad bay dareemayeen. qofkuna markuu mas-uuliyadda tiisa guto, hadduu tu kaloo dayacan arko uu kululaanaya. tusaale ahaan marka waagu bariyo, aabbo waliba qoyska xubnihiisa qoyskiisa u kala diri jiray. inamada adigu hebelow beelaraa, waar adiguna reerka u soo dhaami, adiguna ooda xoolaha u adkee, adiguna maaragtay hooyadii hablaha gurigaa lagaga tegi jiray. aabbuhu markuu inamadiisa iyo xubnaha qoyskiisa wiilasha kala diro, dee waagaa hore dawladi ma jirna, beel waloo meel degtaaba suldaan iyo guurti iyo odayaal bay lahayd, oo kaalinta maanta dawladda ku jirta odayaasha ku jirayo, ciddii istisheehisiin jirayo, ciddii dhibi dhex marta u gargaari jirayo, wiilka iyo gabadha isa siin jirayo. aabba waliba markuu kaalinta reerkiisa subaxiisa oo kala jiheeyo bay geedka isugu yimi jireen. hablaha iyo hooyaduna waxay ku hadhi jireen guriga, oo dee guriga iyo hawsha taalbay hablaha iyo hooyadu qaban jireen. sidaasay tahay aabbuhu markuu arko wax dayacan, dadku isku caqliyaad maaha, nin erey wanaagsan buu adeegsan jiray oo waxaan dayacaha laga tiro, waxaano kulaylka waxa raacin jiray in aan berrit hoole hadalkiisii wanaagsanaa qaboobaay uu sheegay dayac kala soo celin. deedna kulaylkan wuxuu u adeegsanayaa dayacan waxaan meesha laga dayacay. dabadeedna hadhow baa la odhanayaa, haweenku odhanaya ninka kulul oo kale, hadhow buu odayga hadal inay macanaanan doonaaye ha la sii dayac tiro. oo hees baa ka garanaysaa gabadh haanu heesamay hees baa waxay ku lahayd, ayaa dhucdhuca dhabar yar, waagii dharaarowye, geelay dhabaha qaadiye, idihii dharaarsada oday dhagar qabi yimide. manaha oday kulul baa yimid maartay shoomaba dhanaanaatay, waa layna dhibayaa shoomaba dhanaanaatay. mid ka mid a iyadana tilmaamaha ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku waa galmada. dareenka baahiyeed ee uu ilaahay nagu abuuray waa lagu kala duwan yahay rag iyo dumarba hababka aynu kala gudanayn. sidaa daraaddeed waxaa muhiima oo habboon inuu ninku barto habka ugu habboon ee ay gabadhu u gudato dareenkeeda iyo habka u habboon ee uu ninku u guto dareenkiisa marka xagga gabadha laga eegayo. Dil Carney waxa uu ku leeyahay buugiisa Saaxiibo Kasbo, mid ka mid ah 4 mushkiladood ee sababa furiinku waxa weeyaan lamaanaha oo aan si wanaagsan isku qancin marka ay joogaan sariirta. sababtuna wax kale ma aha ragga iyo dumarka Ilaahay waxa uu kala duway habka ay dareenka u kala qaataan marka lagu jiro
hawsha galmada. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah in ay aqoon u yeeshaan abuurta jinsi ahaaneed ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku inta aanay guursanin ka hor. kala duwanaanshaha ragga iyo dumarku waa mid dabiiciya oo ilaahay ku abuuray, sababtuna wax kale ma aha ee waxau ilaahay ugu talagalay inay iskaabaan oo isdhammaystiraan, waayo mid waxa uu ku fiican yahay ayaa kan kale ka maqan. sidaa daraaddeed in laisla sii fahmo kala duwanaanshaha guud ee ragga iyo dumarka iyo kala duwanaanshaha u gaarka labada qof ee isqaba waa mid muhiim u ah noloshooda, waa mid kobcinaysa jacaylkooda, waa mid khilaafka meesha ka saaraysa, furiinkana uu ku yaraan karo. Mm-hmm.